halka warkaas uu idinkaga imaanayana waa xarunta dhexe ee TV-ga dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland uu ku leeyahay magaalada Kismaayo. imikana akhbaaradka dibadda. boqolaal qof ayaa lagu soo waramayaa inay ka soo baxsadeen kooxda Boko Haram kuwaas oo muddo dheer ay gacanta ku hayeen. kooxda xagjirka ahi ee Boko Haram ayay ka soo baxsadeen 700 oo qof oo horay markaa afduub ahaan ay ugu haysteen dadkaas oo isugu jiray beeraley, kalluumaysato iyo xoolo dhaqato. shacabka ayaa lagu haystay xarun ay kooxdaasi ku leedahay waqooyi bari dalkaasi Nigeria, nawaaxiga xuduudda ay wadaagaan dalkaasi wadanka Chad. ciidamada militariga ee wadanka Nigeria ayaa lagu soo waramayaa in ay cutubiyada ku sugan nawaaxiga magaalada Monguna ay gacanta ku hayaan dadkaasi dib xoriyadooda u helay. kooxda Boko Haram oo bilihii la soo dhaafay laga saarayay xarumo badan oo ay ka talinayeen dhulka waqooyi bari ee wadankaasi Nigeria ayaa afduub ahaan u haystay dad badan oo rayida oo qaarkood ay ku shaqaystaan halka haween iyo gabdhaha da'da yarna ay qasab ugu guuriyaan maleeshiyaadkooda. afayeenka militariga wadanka Nigeria ayaa sheegay in laba kamid ah gabdha xaamilo ahaa oo kooxdaasi ay afduubteen oo kamid ahaa boqolaalka qof ee soo baxsaday ay ku dhaleen xerada ciidamada militariga ee wadanka Nigeria gaar ahaan magaalada Monguna ayna hadda bad qabaan. dowladda Mareykanka ayaa waxa ay markaasi shaacisay in gabi ahaanba ay joojinayso dhaqaalaha ku baxaya dowladda Falastiin kadib markii ay ka soo horjeesteen wada hadalladii Israa'iil iyo Falastiin u dhaxeeyay. madaxweynaha wadanka Mareykanka Donald J. Trump oo sii wada xiisadda uu ka abuuray bariga dhexe ayaa waxa uu ku goodiyay in uu joojin doono deeqda Mareykanka uu siin jiray maamulka Falastiin oo ku eedeeyay in ay diideen wada hadalka. Trump oo bishii hore iskii u qaatay go'aan uu markaa ku aqoonsanayay magaalada Qudus inay tahay caasimadda Israa'iil ayaa waxa uu sheegay in tallaabadaasi ay meesha ka saartay qodobkii ugu caqabada badnaa ee wada hadallada Israa'iil iyo Falastiin. balse Falastiiniyiinta ayaa hadda waxay diideen in wada hadalladaasi ay dib u bilowdaan. wuxuuna isweydiiyey sababta Mareykanka ay u sii wadayaan deeqda uu siiyo Falastiiniyiinta maadaama ay diideen wada hadallada Israa'iil iyo Falastiin. Falastiiniyiinta ayaa waxay la yaabeen hadalka Trump eedeynta ka soo yeertay xilli uu markaa isagu uu qaatay go'aankii xagjirka ahaa ee ka careysiyay dunida muslimka ka gadaal markii uu magaalada Qudus u aqoonsaday caasimadda Israa'iil. qodobkaasi oo furo u ahaa wada hadalka iyo dhismaha dowlad u gaara Falastiiniyiinta. madaxweynaha dalkaasi Mareykanka ayaa tilmaamay in arintan markii ay diideen uu markaa ka fiirsanayo dhaqaalaha la siinayo Falastiiniyiinta. Mareykanka ayaa lacag dhan 319 milyan oo dollar waxa uu siiyaa Falastiiniyiinta halka Israa'iil sanad waliba uu siiyo lacag ka badan 3 bilyan oo dollarka Mareykanka oo u badan sanad military. go'aankii Trump uu qaatay 6dii bishii December ee magaalada Qudus ayaa lagu tilmaamay in gabi ahaanba ay burburisay wada hadalkii Mareykanka garwadeenka uu ka ahaa ee wadada dheer u xaarayay Falastiin iyo Israa'iil. wuxuuna go'aankaasi sidoo kale keenay banaanbaxyo badan oo ka dhacayay dunida muslimka. qoraalada uu bartiisa Twitterka uu ku soo daabacayo madaxweynaha wadanka Mareykanka Donald J. Trump gaar ahaan qoraalkii u dambeeyay ee Isniintii shalay ayaa sidoo kale waxa uu abuuray xiisad u dhaxaysa Mareykanka iyo Pakistan kadib markii Trump uu sheegay in uu jari doono dhaqaalihii uu siin jiray Pakistan oo ku eedeeyay in ay gabaad siiso kooxaha ka dagaalama wadanka Afghanistan isla mar ahaantaana Pakistan ay ku guuldareystay dagaalkii ay kula jirtay kooxaha xagjirka ah ee markaasi uu Mareykanku dagaalka adag uu kula jiro. warkii oo daawadayaal kala socoteen telefishinka dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland anigoo aadan maxamed salaada daawadayaal idin socodsiinayay xilligan weygeynta warkan warka xigay intaanu dib hawada kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.